السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada muuqaal kale muuqaalkan maanta waxaynu kula wadaagi doonaa macluumaad badan oo ku saabsan wejiga cusub ee internetka ama waxa loo yaqaano web3 sidoo kale waxaan isbarbardhig ku sameyn doonaa web1 web2 iyo web3 balse waraan waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like garayso oo aad like saarto okay muuqaalkeena maanta oo ku saabsanaan doona inta ugu badan web3 inta aan markaa macluumaadka web3 gaan u gelin waxaan isbarbardhig ku sameyn doonaa web1 web2 iyo web3 anoo ka bilaabi doona web2.0 oo ah versionka markaa naga aan isticmaalno web2ga markaa website-yada ugu caansan ama ugu waaweyn waxa kamid ah social media sida Facebook, YouTube, TikTok iyo kuwa kale la midka ah fiijarada markaa web2ga uu leeyahay dabcan qaar badan kamid ah waad garanaysaan waxa kamid ah in aad xawaan ka samaysan karto in aad xog soo gelin karto in dadka kale xogta ay soo dhigeen aad ka falcelin karto community iyo like iyo share baad uga falcelin karto qaabkaasi markaa loo yaqaano read and write oo ah macnaheedu inaad macluumaad ku qori karto macluumaadna aad ka aqrisan karto sidoo kale web2gu waa dynamic website-yadu markaa waxay kala baxaan dynamic iyo static markaa waxaan ugu tagi doonaa web1ka balse dynamic haddii aan sharaxo macnaheedu waxa weeyaan oo wax isbedbedelayo tusaale ahaan iminka adu markaa TikTok aad soo furto waxyaabaha uu kuu soo dhigayo muuqaalada uu kuu soo dhigayo iyo aniga muuqaalada uu ii soo dhigayo way ku kala duwanahay dabcan xogaha uu noo soo dhigayo isagoo kaliya TikTok oo kaliyana ma aha ee Facebook ay kuwa kale la midka ah xogaha ay noo soo dhigayaan wax ku saleeyaan macluumaadkii annaga ay naga heleen sidoo kale markaa macluumaad kuu soo baxa haddii aad refresh siiso way isbedeli doonaan iyadoo weli lagu saleynayo macluumaadka adiga laga helay isugu jiray waxyaabihii aad like garaysay waxyaabihii aad daawatay ama aad ku raagtay daawashada waqtiga badan aad ku bixisay dadkii aad follow gareysay waxyaabihii ay soo dhigeen iyo waxyaabaha kale la midka ah faa'iidada marka ugu weyn ee web2ga shirkadahu ay ku qabaan waxa weeyaan in macluumaadka naga helaan macluumaadkaasi marka iyagu faa'iido ay u leedahay anagana faa'iido daro ay noo leedahay runtii faa'iidada marka iyagu u leedahay waxa weeyaan in macluumaadka naga heleen in lacag ka sameeyaan oo shirkadaha u baahan in wax loo xayisiiyo macluumaadka inay ka iibiyaan xaysiimahaasna naga inoo soo bandhigaan faa'iido darada marka anaga noo leeyahay waxa weeyaan privacy la'aanta ama xogaheeni oo aan private noo ahayn wax walba adiga kugu saabsan internetka maanta way ogyihiin shirkadaha ugu waaweyn tusaale ahaan xogahaada professionalka ah sida xirfadahaaga aqoontaada iyo waxyaabaha kale la midka ah way hayaan oo adigoon lagu amrin ayaa waxaad gelisaa LinkedIn xogaha kale shakhsiga ah sida tusaale ahaan waxyaabaha aad jeceshahay meelaha aad tagto waxa aad aaminsan tahay siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaan wax walba iyadoo aan cidna kugu qasbin ayaad Facebook gelisaa oo Facebook ayaa haysta gacanta ku haysa teknolojiyadan isticmaalkeeda dadku waxay bilaabeen ama si caadi ugu soo wada guureen 2004 ilaa 2005 dabcan teknolojiyadan waayahaasi marka loo soo guuray dadka aad iyo aad ay ula yaabanayeen oo waxa laga yaabaa Soomaalida xilliga joogtay inay islahaayeen subhanallah astaghfirullah gaalka dhib badan ama wuxuu sameystay eega والله isagana dunyada la siiyay anagana aakhirada la siiyay yani way la yaabanayeen sababtoo ah sagaashamaadkii adigu 2004 wixii ka horeeyay dadku waxay isticmaali jireen web1 ku markaa ma u lahayn featurada imka anaga isticmaalo su'aalahan ma ay awoodi jirin iyagu in ay ciwaan ka sameystaan website-yada in ay xoga soo galiyaan in maxay xogaha dad kale ay soo galiyaan ama shirkadaha website-yadaas kale waxyaabaha ay soo dhigaan xataa inay ka falceliyaan ma ay awoodin oo comment iyo like ay ugu falceliyaan marka waxay ahaayeen read only wax la yiraahdo halka website-yadan web2 ay yihiin read and write ku qor oo akhri halkaas waxay kaliya akhri oo daawo wax ku jira sidoo kale website-yada marka web1ku waxay ahaayeen static macnaheedu marka waxa weeyaan wax aan isbedelaynin oo sida ay yihiin hadaad refresh u dirto hadii kalaba soo ahaan doona rabitaankaagana lagu saleynayn okay marka waxaan isleegi doonaa web3gu dabcan isaguna teknolojiyada wuxuu la soo baxay naga yaabin doonta ama naga yaabisayba oo laga yaabo qaarkan inay isleeyihiin wallahi gaalku caadi ma aha teknolojiyada shidan noo keenay uu naga waalaya wallahi gaalada yar naga waalayaan iska daayaqay iyaguna adduunyada ka qabsadeen anagana aakhiradan ka dhanaansanaynaay haw bixina madaxay haw bixina wejiga cusub marka internetka ama waxa loo yaqaano web3.0 oo dabcan isticmaalkiisa nimanka dadka ay bilaabeen adiguna aad isticmaali karto inkastoo dadkan ay u wada guurin oo wali laga dhursugayo waxa uu leeyahay waxyaabo badan tusaale ahaan markaan eegno dhanka lacagaha oo kale lacagaha imka internetkan ku isticmaalno waa dollar sidoo kale waxaan lacagahaas ku maamulnaa bankiyo balse web3ga lacagahaada waxaad ku maamulan doontaa waxa la yiraahdo walletka sida MetaMask ama MetaMask waxay yiraahdaan dabcan lacagaha aad ku isticmaali doontana dollar ma aha oo waxaad ku isticmaali doontaa lacagaha loo yaqaano cryptocurrency-ga faa'iidooyin kale leeyahay waxa kamid ah in xogtaada 100% aad gacantaada ay ku jiri doonto waxaan la jeedaa salaam marka aad rabto in aad website-kaada aad online ka dhigto ama business-kaada online aad ka dhigto waxaad ku qasban tahay in shirkado serverra haysta oo hosting bixiya in hosting-ka aad ka karaysato dabcan marka website-yada marka shirkadahaas aad serverradooda geliso website-yada iyo business-kaaga oo dhan shirkadahaas ay gacantooda ku jiraan balse teknolojiyadan cusub ee web3ga iyadoo dabcan la adeegsanayo ama ay fududeynayso teknolojiyada loo yaqaan blockchain oo muuqaal gaar ah in laga sameeyo mudan blockchain-ku waxa weeyaan waa teknolojiyada
inay noo fududeynaysa in web3ga aan isticmaalo ama waxyaabaha kala duwan web3ga lagu isticmaalo dhan teknolojiyada fududeynaysa marka teknolojiyada iyadoo la adeegsanayo ay wax ku fududaan doonta in xogtaada internetka aad gelin karto iyadoo aan cid kale ku heyneynin isla markaana meel walba laga heli karo sidoo kale wax ku fududeynaysa blockchain-ka wax loo yaqaano gaar ahaan qaybta NFT-ga in xogtaada internetka aad gelisay ay ku ahaato unique oo haddii laga koobiyay xataa lagu ogyahay adiga oo kan originalka mar walba la soo heli karo inaad adiga leedahay in la ogaan karo marka NFT-ga iyo waxyaabahaas muuqaal ayaan ka sameyn doonaa sidoo kale marka waxa ay teknolojiyadan web3gu leedahay xorriyad dheeraad ah oo waxa doonta ay soo gelin doontaa account laga baloogi doono ama website laga baloogi doono ma jirto waxa doonto niyadaada ku soo dhaxayana soo dhigi doontaa taasoo dabcan caamada ka dhigi doonta inay waxay doonaan isaga hadlaan waxay doonaan inay ka sameeyaan sidoo kale waxyaabaha ay leedahay teknolojiyadan waxa kamid ah in search engine-ka aad u madax banaanayso waxa doonta aad raadin karto waxa laga yaabaa inaad leedahay soo anaga imka search engine wax walba ka raadina Google wax walba ka raadina Google marka aad wax ka raadinayso wuxuu ku soo dhigaa website-yada iyo blogyada ugu caansan isagoo marka taa ula jeeda in waxyaabaha ugu caansan dadka ay wada yaqaanaan in xayisiime ay dul saaraan oo iyagana xayisiin ay ka sameeyaan marka Google wuxuu ku soo dhigaa imka wax isaga raali u ka yahay 80% ayaa la oran karaa wax isaga raali u ka yahay ku soo dhigaa halka pages-ka kale laga yaabo inuu xagga dambe geeyo ama aan ku soo dhiginba balse teknolojiyadan waxa doonta ay raadin doontaa macluumaad badan ee heli doonta iyadoo marka aan lagu sameeyay website-kana caan ah ama views badan haysta ama wax saasa sidoo kale marka internet-kan web3ga aad doonayso inaad wax ka iibsato ama wax ka dhex iibsato ama lacagaha ka soo galayo dabcan ma laha meel dhexe oo maamusha banki ma soo mari doona lacagahaasi sidoo kale dawlad canshuur ka goosanaysa ma jirto si toos ay kuugu iman doonaan dabcan imka bilow weeye waxyaabo badan way la soo bixi doontaa metaverse iyo waxyaabo kale badan oo la rajeynayo mustaqbalka inay soo saaraan way jiraan oo teknolojiyadan dabcan la falgeli doona ee blockchain-ka iyo waxyaabaha la falgeli doona intaas ayaan maanta jeclaysiin in la wadaago walaalayaal muuqaalka haddii aad daawashiisa halkan aad kusoo gaadhay like saar sidoo kalena sii share garay haddaad weli nagu soo biirina subscribe channelka nagu soo biir muuqaalka xigeentan ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo